xabsiga dhexe ee xamar waa mid ka mid ah meelaha sida weyn looga taxadaro amniga guud ahaan xabsigaasi waxa uu ku yaalaa degmada xamar jajab ee gobolka banaadir dhammaan waddooyinka soo gala kana baxa waxaa jooga ciidamada asluubta kuwaas oo si weyn uga taxadara amniga xabsigaasi xabsiga waxaa ku jira rag loo haysto dembiye kala duwan oo ka dhacay muqdisho siiba qaraxyo dilal waxaana inta badan la sheegaa in xabsigu u qaybsamo 3 qaybood watan koowaad ee rag loo haysta dembiye fudud maxkamad sugayaal ah kuwa ay maxkamaddu soo xukuntay iyo kuwa fal dembiyoodkooda galalkooda la hayo kuwaas oo baaritaan ay ku socdaan xabsiga dhexe ee xamar xalay waxaa ka dhacay weerar toos ah oo u dhexeeyey ciidamada asluubta ee xabsiga maamula iyo qaar ka mid a maxaabiista xabsiga kuwaas oo si fudud gacanta ugu dhigay hub dabadeetana daqiiqado badan ka dhex dagaalamayay ilaa ay xaaladdu gaartay in ciidamada alfa group la dalbo dabadeetana ay xabsiga yimaadaan kadibna weerarka ay soo afjaraan ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa Shabeelle waxay u sheegeen in ku dhowaad 12 daqiiqo uu weerar toos ah ka socday xabsiga ugu dambeynna la khaarijiyay in ka badan 7 xubnood oo ka mid ahaa kuwii ka dhex dagaalamaya xabsiga 4 kalena gacanta lagu dhigay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu ka warbixinayaa qaabka uu ku bilowday weerarkan iyo sida loo soo afjaray waxa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayaga raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantooda uu ku galay waxay bilaabeen dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyihii ay haysteen oo gacantooda galayna 2 qori ay noqotay 2dii qori ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas waxa meesha ka dhacayna waa inta ayada wax ka gudubsan ma jiraan habacsanaanta dhanka ammaanka waa tan keentay in si fudud maxaabiista ay ku helaan qoryo dabadeetana ay dagaalamaan laakiin taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA Ismaaciil Cismaan oo wareysi gaar ah siiyo Shabeelle ayaa waxa uu qabaa in loo baahan yahay in isla xisaabtan dhab ah la sameeyo waxa uu nasiyo xog dhammaystiran oo ku aadan qaabka uu shaqeeyo xabsigan iyo sababta keentay weerarkan marka horeba hadii ay taariikhdaas run tahay shaki baan ka qabaa hadii ay run tahay waxaaba mamnuuc ah in ilaalada maxaabiista ay xabsiga dhexdooda hub ku qaataan waa hub loo ogol yahay oo kaliya kuwa darbiyada saaran checkpointyada jooga irida jooga laakiin ilaalada maxaabiista ku jirta gudaha xabsiga dhexdiisa waxa ka mamnuuc ah inay hub qaataan sababta loo mamnuucayna waa mid hadda aad sheegtay oo dhacday oo kale dhammaan intii maanta shaqada ku qornayd ee joogtay ilaalada ahaydna lala xisaabtamaa haddaan waddankan isla xisaabtan uusan imaanin marnaba ma imaanayso in amnigii mas-uuliyadda la iska saaro waxa waaye weerar baa dhaca qarax baa dhaca ma jiro wax isla xisaabtan ah iyo cid la xisaabtamo haddii mas-uulka amniga qaabilsan uu og yahay wax walba oo dhaca dalka ka dhaca inaan lagula xisaabtamaynin wuu istabcinaya wuuna ka seexanaya sababta wuxuu og yahay inaan lala xisaabtamaynin marka madaxda qaranka waxa laga rabaa kan ugu koreeya taliyaha ciidanka asluubta iyo ilaa iyo inta maanta shaqaynaysa oo dhan inta laaba laga qaado xilkoodana ay ku waayaan lagula xisaabtamo qaarkoodna ay xabsi ku galaan kusimaha wasiirka cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya oo isna warfidiyeenka la hadlay weerarka kadib ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay guddi u xil saartay sababta keentay in maxaabiistu hub ay helaan dabadeetana weerar ay geystaan si hayaha wasiirka cadaaladda waxa uu sheegay in cid walba oo lagu helo in weerarkan ay ku lug lahayd ay maxkamad la tiigsan doonaan isagoona noo carabaabin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi balse hadalkiisa ku soo koobay in dawladdu ay wado baaritaan amuurtaasi ku aadan haddana waxaa socda baaritaankaas oo la xiriira falkaas habkii ku dhacay iyo sidii u dhacay waxaana rajaynaynaa in la soo gebagabayn doono baaritaankaas waxaa kale rajaynaynaa
cid allaa ciddii arrimahaas fududaysay in hubkaas gacanta ay u galaan nimanka oo rabshadaas halkaas ka kiciyey waxaa lagu qaadi doonaa sharciga waxaana la horgeyni doonaa sharciga waxaan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan ilaalin doono xabsi. dhowaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaqadii waxay ka joojiyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. haddaba taas ma loo micnayn karaa in xaaladda amni darre haatan ka jirta Muqdisho ay soo dadejinayso isla xisaabtan la'aanta? mar kale waxaa inoo sharaxaya taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. waxaan ku sheegay xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha ayaa keentay waxaan loo yaqaan vacuumka ama maaragtay hay'adihii dawliga ahaa oo aanan maanta ogeyn maxaan ku yiraahdaa meesha bari ay maaragtay cagaha dhigan doonaan sababtoo ah waxa la sugayaa waa ra'iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub iyo isbedel wadanka ku yimaada marka qof og inuu bari shaqadiisa weyn karo ama la bedeli karo oo shaki badan uu kaga jiro waxaa taas ayaa fududaysay inay isdhigtaan oo ay ka seexdaan shaqadii loo gimaday oo ahayd amniga sugan haddii aanan si degdeg ah loogu dhawaaqin loona magacaabin ra'iisul wasaare karti leh oo maaragtay ahmiyadiisa koowaadna ay tahay inuu sugo amniga dalka si ay doorasho uga dhacdo labadaas mandate hadduu wadaanan la siinin ra'iisul wasaare imaan doonana kooxda shabaab way kasii daraysaa qaraxyada iyo dagaalka gudaha magaalada Muqdisho ka dhacayna wuu sii laba jibaarmi doonaa sababtoo ah waxay ka cararayaan kooxda al-shabaab ayagoo in ay wadanka doorasho ka dhacdo waxay rabaan in madax la isla galo in maaragtay aysan dhicin wax nidaam dawli u ah oo ay doorasho ku dhacdo marka waa in mas'uuliyad la iska saaraa sugidda amniga waana in si degdeg ah loo magacaabaa ra'iisul wasaare keena golo tayo leh oo wasiiro ah oo suga amniga dalka doorasho la qabto. shacabka Soomaaliyeed ayaa dhagta u taagaya in dawladda Soomaaliya ay soo bandhigto sababta keentay in maxaabiis ka mid ah kuwii xabsiga ku xirnaa ay qoryo helaan dabadeetana ay dagaalamaan. guud ahaan khasaaraha ka dhashay weerarkii xalay ee maxaabiistu ay ka geysteen bartamaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa aad u korortay. maxaabiis gaaraysa ilaa 7 ruux ayaa la toogtay halka ciidamada dhimashadoodu ay gaarayso 4 sidaan ka soo xiganay laamaha ammaanka. xabsiga dhexe ee Xamar xaaladiisa ayaa haatan waxay tahay mid degan inkastoo dawladdu ay sheegtay in baaritaanna ay wadaan. dhinaca kale siyaasiga aadka u dhaliila dawladda federaalka Soomaaliya ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in xaaladda amni ee Muqdisho ay faraha ka sii baxayso. waxa uu siyaasigu sheegay in weerarkii xalay ka dhacay xarunta xabsiga dhexe ee Xamar ay hay'adda NISA gacan weyn ku lahayd isagoo sheegay in qoryihii ay ku dagaalamayeen xubnahaasi hay'addu si qarsoodi ay xabsiga u geysay. sababtii maalin dhaweyd ciidan ayaa la weeraray xaruntan lagu weeraray xisbiga waa la qariyay warbaahintii hatiina cid inii sheegtay ma jirto waxa ka ogtiina jira maya waa la qariyay xalay shabaab ayaa hub loo geliyay salligii dhexe ee dawladda si loo fakiyo dad shabaab meesha ku jira ujeedo kale ma ahayn waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka ay mas'uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabad sugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabad sugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay talis Soomaali u shaqeeya waa la kala garlaaya ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabad sugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan oo ayaga iyo shabaabkii la kala aqoon waayay waxaan rabnaa ra'iisul wasaare fuliya heshiisyadii Dhuusamareeb 1 iyo 2 saddexna ka gugaara oo kamira dhaliyaan rabnaa oo dalka si nabad ah transitionka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah waxaad ogtihiin dadka Soomaaliyeed ay ogyihiin in baaqi isdaba joog ay soo baxayaan oo maamul goboleedyada ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka wax garadka ay ka imaanayaan dheer garadka oo ay qabaa'ishii ka imaanayaan qaasatan kuwii magaaladan xooggeeda deganaa intaas oo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabad sugidaba inay dhagaha ka furaystaan suuragal ma aha waxaan ka digaynaa xaaladda dalka waan ka warqabnaa idinkana oo ogtihiin warbaahinta dadka Soomaaliyeed magaaladan ku nool oo ogyihiin waxaa la yiraahdaa xaaladdan oo kale xaalad kacsanaan ah xaalad deganaan la'aan lagu jiraa waxaana keenaya hubinti la'aanta masiirka dalka la geliyay iyo halka loo socdo ayaa keenaya saas daraadeed waxaa dhici kara qarax yar oo magaaladan ka dhaca kama wada qaraxii al-shabaab iyo argixisada laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yiraahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan maadaama ay dadkii abursanaan iyo caro
iyo maaragtay tabasho ay isku darsantay masiirka dalkoodina mugdi la geliyey meel loo socdan aan la aqoonin hubanti la'aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay wadamada nugul ee fragility-ga ah ee ka soo kabanaya colaadaha aad ay ugu daran tahay waxaa la rabaa wadamada fragile stateska la yiraahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihiin inay hubanti ku socdaan kuma soco karaan hubanti la'aan saas daraadeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo si dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka odayaasha deegaankana si nabad ah oo aysan subax fidno korkooda ka kor dhicin oo aysan waaga ugu baryin inay dalkan dhibaato ka dhacdo oo si nabadeed ah inay isku dhaafiyaan taliskan xilligiisa dhammaaday muddo korosigana raba saldhigana ay u yihiin guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo taliska nabad sugidda oo aanay cid kale doonayn dheg inay jalaq u siiyaan oo aan tala maqlaynin oo ismahdiyey oo u haysta dalka inay ayaga awood iyo xoog ay ku qabsan karaan wadajirkaas ayaa loo gudbi karaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka intiisa kale ku noolna iyo madaxda iyo mas'uuliyiintana arrintaas in lagu gacan siiyo dadka reer Muqdisho inay ayaga iska dulqaadaan dadkaas dulmiga iyo dhibaatada ku haya